السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقتها ودنك الله هاي أردن وودنك عربته الله أردن حالته لأنه كان عي أفجنبي فشلمي أفجنبي بس أنت أنا كعشة كين كهر وحير هرتان دبكو عليو شلا ما هي درات وحاد عضي إن لا أركب بقرك أردن ولا بسن لبس كملتريجا وهادلايو مركو هادلاي نحو يري ودن كان ملك السرايو خوف كالكسرة ماله ده ودن كان شرعي ولو سمية دد وحاجر وربان إنه بحان هذا الله إما هذا مشان إيروان إنه هلا شعبيت مسنا سواء عن بحان تاسن وحول وحلقية لا إن معها شرعي وحودا وشرعي كل جين أوسمنا هذا الكاس مركي الفيري وحادب لوسي لعبتي لو سنة كهر ولا الكيس هذا لو ديجري أو أها وده ودن كان وحكوبطي وأدو جبوح وده هاي مسق نين كان ساس ده هاي وبحي وحوت تجدلك فلسطين مثل المقدس أو إنه تجو نين كان ولا الكيس وأفجنبي السمية مجلس الله حمزة وحونا أها بقر كحجينك وهنجري ninka marka hadda haysto oo boqorka ah boqorka xogeennimadaas walaalkiisa oo haysan jiray oo ka qaaday cunugiisa ayuu siiyay ninka marka hadda sameeya afgambiga wuxuu sugayay inuu noqdo boqor meeshii marka laga wareejiyay waxa dhacday hooyadiisa boqor nuur inay bilowdo sidii ku soo celin lahayd boqortooyadaas cunugeeda dhaaftay maxay sameysay waxa jira heshiis oo lahayd heshiiskii qarniga heshiiskaas waxa galay madaxweynaha Mareykanka hore Donald Trump wuxuu la galay boqorka Sacuudiga iyo wuxuu la galay boqorka Imaaraadka iyo wuxuu la galay boqorka Bahrain iyo wuxuu la galay madaxweynaha Masar waxa la hayaa heshiiskii qarniga heshiiskaas wuxuu ahaa Falastiin degan Gaza in la soo qaado oo meel la Siinaa Masar kamid ah in oo la dejiyo dadkii deganaana Siinay in la xaaqo oo la burburiyo oo eber laga dhigo kuwii deganaa Gaza in la soo qaado oo la dejiyo dadkii maaragtay deganaa Siinaa booskooda al rabi boqorka oo Urdun arintaas wuu diiday markuu diiday waxa la yiri saaxiibada diiday meesha waa ka tuureena ninkan boqorka Urdun wuu baxay isla markiiba wuu orday wuxuu u tagay Turkiya wuxuu ka qayb galay shirka Sacuudi Turkiya wuxuu la saftay oo garab istaagay boqorkii Qatar iyo madaxweynaha Turkiya dhaxda ka galay wuxuu la garab haystay cid aan ka baqaaya malaha waxa dhacday habeen hore sida loo socday boqorkii Urdun inuu imaado TV-ga oo sameeyay handadaad الحرب الواسطة بدنا سيادة القانون لكن القضية لما بتقرب على أهلي إنه حرام اللي بده يشتغل ضد سيادة القانون بغض النظر مين هو بغض النظر مين اللي وراه مسق على دقالمينا قربنا عدو عسكو سينيسانا مالها شرعينا عدك سريسانا مالها شرعينا ولو سمية شرعي ولو سمية هاي أمدنا واسكوذا ميت خوف الله لو خوف كات هاي خوف كي كدن بايا بكل قود اسكوذا مدان ليه معناه أو خوف ودن كان شرعي كسرية مالها أبو مانتو حالة أركي ودن كيو كدعي أفجنبي afgambiga yaa sameeyay waxa sameeyay walaalkiisa Hamza boqorka xogeenkii hore oo laga qaaday boqorka xogeennimada waxaana ka caawinayay talihii hore ee qasriga boqortooyada iyo la talihii hore ee boqorka afgambigii meesha ku fashilmay meesha lagu qabtay dadkii saasana waxa waaye arintii ay ku dhamaatay afgambigan marka maanta dhacay sabab ayaa jirto u dhacay marka sababtaas aan ku sheegaa boqorka hadda Urdun haysto waxa la dhalatay gabar magaceedu waxa lahaa haya waxa qabay oo qabi jiray boqorka mise taliyaha meesha lahaa magaalada Dubai Maxamed bin Rashid Al Maktoum labadan qof is qabeen gabadhan waxa dhalay boqor walaalkeedna waa boqor waxay guursatay taliye oo haysto gobol dhan oo lahayo Imaarad Dubai way guursadeen dhowr sano is qabeen way isku ilma dhaleen waa la raaxaysanay waa la tumanay arintooda kaal arag ahayd sida loo fiicnaa hal mar waxa dhacday boqorkaas Dubai Maxamed bin Rashid ninka lahaay Maktoum waxa lagu leeyahay horta kaas horta kaaga sheekeeyo Maxamed bin Rashid Maktoum caruur mise awlaad labadan kuwa naagta u dhashay kaliya kama haysto ilmo badan oo dhalay ilmihiisu waxay gaarayaan brother waxa la xisaabi karin ilmihiisu waxay marayaan nambaro ilmihiisa gabdhihiisa ma aha waxa lahaay Maryam iyo Sucaad iyo Faadimo iyo Khadiija ma aha gabdhihiisa waxa la kala lahaa Maryam 1 Maryam 2 Latifa 1 Latifa 2 Halima 2 Halima 1 Xaabo 1 Xaabo 2 waxaas waa number maxaa yeelay gabdhihiisa ciida ka bateen way naagiisa ciida ka batay marka xoor waa gabar kasto magac hooyad in la siiyo markii laho yaa ku dhalay Latifa leedahay Latifa hiblaaye gabadheedu okay waa ku aqaana saas waa marka Latifa 1 Latifa 2 Maryam 2 ilmi ciida ka bateen waxa dhacday gabar asoo dhalay 1998 inay baxsato wala yaabo waxa la nin oo dhalay boqor gabadhiisa ay tahay soo baxsan kartaa saaxiibo gabadhii luuq markay gashay waa la soo qabtay
waxaa la maxaa baxsanaysaa waxay tiri meeshaan noloshaan aan nacay kuma jiri karo waa cararaya way carartay baraad luuq markay gaartay waa la soo qabtay waa la xiray waxaa la siiyey cirbid waa la duray wax iska noqotay qof cirkas kaga jiro waalan ilaa hadda war lagama hayo meel ku jirto 20 sano ay maqan tahay waxaa dhacday 2017 boqorkaas gabadhiisa oo yar oo markaas jirtay 28 sano inay baxsato magaceedu waxaa la Latifa 1 way carartay waxay la carartay ee la baxsatay oo caawiyay inay baxsato nin oo Faransiis ahaa markay marayeen Hindiya badii Hindiya laga soo qabtay markii u dhawaay Mumbai waa la soo qabtay waa la soo celiyay waa la xiray brother 2018 ilaa hadda gabadhii war lagama hayn waxay soo hadashay 2021 daraad bilooyin maalmo ka hor ay soo hadashay waxay tiri aniga nolol xunaan ku jiraa مسؤولة كسول حلويا هبي مالنا وانا الكفصدا مشان كجرنا وحبسي بلاي شيكتي ادوك انا كعب marka gabadhan hadan kaga sheekeynay Latifa ninkan u dhalay hadii arinta inta ku xirno waxa uu laabanayna boqorkan Urduna ka sheekeynay walaashiis wallahi haya gabadha sidaas ninkan isku hayn loo raaxisana loo tumanay loo baashalay brother hal mar ay baxday bum wala way ruuxa la maxaa kugu dhacay wala tahriibi war maxaa kugu dhacay London ay tagtay waa tan waxay tiri ana I am in London this is London ay tiri brother wala yaabay maalmo kadib maxkamadda ay tagtay wala yaabay maxkamadii waxay gashay brother inay ninkeeda dacweyso waxa la naagtan in dacweynaysa yaa qof dacwada ay u wado koo waxay codsatay deganaashu waxayna tiraan waxaan dacweynayaa ninkeyga Maxamed Baraajil Maktuum ninkeeda ay dacweysay sababana ninkeeda ku dacweysay markii la weydiiyay waxa soo bixin kiisas badan oo ah ninkan ilmihiisa caruurtiisa inuu ula dhaqmayo si xun oo xad dhaaf ah gabdhihiisa si bini'aadanimada ka baxsan markaas tir aniga maraba ilmahayga inaan cishto waxa ka codsanaya caruurteedna aniga ila joogaan oo aniga aan kafaala qaado gacantana ku haysto isla markii ninkan uu soo hadlay wuxuu ilmaha la soo celiyo doodii way weynaatay shakadiisa u socotay qofiya waxa la kaalay ilmahaaga lagama celina waa haysanaysaa ee kiiska noo qarx ayaa waxa soo baxday gabadhiistii mataqaan ku dhahay iyo baxsatay intii laga soo qabanay waxa la arkay saaxiib gabadhaas cajal soo dirtay video soo dirtay dheeso aniga mas'uulan ku dhax jira I'm not free. I'm enslaved. I'm imprisoned in this jail, you know, like my life is not in my hands. I've been by myself, solitary confinement, no trial, no charge. أنا أقول إنه لا هذا ما له كفصة وعاصم من ملا يجلسوا جارة وحنا بكفصة هبين ما لنتري وردي يشير أبو فيلك وسيبين هذا حد مركا بقولتوا الإنجليز كبرادر بحدرتي تدي قدرت بارتانا ولا سوبارو برادر محاير مشى متقن إمارات السعودي واحد بحرين تاني مصر تاني كل برادر وحوس تجمع دلاد إنجليز كأبو إنجليز كمان مشوا مركا ولا دري ولا سوق برا ولا بعدين يا ولا محكمتين الله عيب بدنا صوب بحد kiiskii qarxisay sababta gabadheeda oo soo carartay sababta ma taqaana maxay tahay sababta waxay tiri waxa waaye waxay tiri intaan imaanin ka hor 2 bilood ayaa nin oo Maxamed Baraajil Maktuum macnaha taliyaha oo imaarad Dubai ayaa ay imaaday nin waardiyihiis qaaska ilmaadeerna ay yihiin isku cidna ay yihiin wareer Maktuum ah ay imaaday wuxuu yiri dumaashi aad baan kaaga xishoodaa waan ku respect gareeyaa moogtahay isbuuci hor safarna ku maqnaa waxay tiri ha safarkaas ku maqnaa wax kale umaana maqneen nin ayaa gabar soo doontay marka doonashadaas ayaa anagana ku maqneen wada hadal oo doonashada gabadhaas la soo doontay waxay tiri hay warkaysi yaa la soo doontay cid kale ma hor dhaw cid la soo doontay ma ahe gabadhaad adiga dhashay la soo doontay gabadhaas meeqsan jirtaa ma taqaana waxay jirtaa 12 sano yaana soo doontay ma taqaana waxa soo doontay Maxamed bin Salmaan ninka buuran oo Sacuudiga haysto markay soo carartay kabteed aad ka dhacday barada sidaas inta ku imaatay saasan ma arag meeshan ku degtay filimka markuu weynaaday ceeb weynaan soo baxday hatta waxa kale soo baxday ninka ilmihiisu habeenkii ee Riixaan Abu xaaladdu xunta barada herkaas la maraya marka ninka marka gabadhan ka carartay ee London tagtay wuxuu yiri waxaan ka balan qaadayaa hadaadan soo laaban ilmigaadan ii keenin arintaas aad ka hadashid wax aad gacmaha la gashidna walaalkaaga inuu kursiga waayay afgambi lagu sameeyay xalay marka afgambigii labaad dhacay saasoo ku fashilmay mid saddexaad mid afraad soo socda marka umaleynayna marka meeshan waxa socod brother saqiir soojis Maxamed bin Salmaan buurane gabadha sariista oo ku toon jirka oo inuu saqiir soojiyo wala yaabaya mid kale keen ku dhaaf afgambiyo sameeyay oo reer udunaha brother walaalkiiska oo reer afgambiyo brother waxa lagu xir guri oo inuu aniga أحبائي أبناء هذا الشعب الواحد العظيم من شتى أصوله ومنابته
جاني اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة وقال لي باسم مدير الأمن العام وباسم مدير المخابرات إنهم بيحذروني إني ما أخرج من البيت وما أتواصل، وممنوع إني ألتقي أو أتواصل مع أبناء هذا الشعب، وتم سحب الحرس أو حرسي وحرس. waayahay boqorkii wuxuu yiri aniga arintan dhacday afgambiga shaqo kumaanan lahayn waxaan ka ogaana malaha hadan waxa ay imaadeen nimankii sirdoonka ay ninkii maaragtay wakaalada sirdoonka haystay waxa la saaray xabsi guri arintan waxaan ka ogaayna malaha shaqana aan kula yahay malaha aniga waxaan dhibi jiray raayigayga marka waa ka marka wiilku wuxuu tagay barada hal badbaadiyay aniga ilmahayga iyo maaragtay ciideeda dhan ilmahayga kullu waxana la saaray cunug qabateen meel oo bixi karna malaha wixii waardiyahana wadna laga qaaday marka nabadbaadiyo taagay marka waa kaay dadkan ninkan waxa soo direen Imaaraadka iyo Sacuudiga waxa uu kursi laga qaado si uu saxiixo heshiiskii oo Israa'iil ay rabtay in maaragtay Falastiiniinta meeshan laga la wareego marka meesha brother diin iyo walaalnimo iyo caqiido ay ka baxdo waxay noqotay kursi waxa ummadna isku diraya marka caaw arinta Imaaraadka arintan waxay ahayd gabar bilowday waxayna ku bilowday saas guurkaas gabadhaas yariis hadan waxayna ku dhamaatay in lagu heshiiy waayay heshiiskii qarniga ah marka arintan waa siyaasad iyo diin iyo wax badan isku qasan waaye